بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kusoo dhowaada casharkii soddon iyo saddexaad ee barnaamijka aan ugu magac darnay guusha qoyska ama guurka iyo axkaamtiisa. waxaan weli kusoo jirnay xuquuqda labada qof ee isqaba ay leeyihiin, gaar ahaan xaaska xaqiisa ama gabadhii xaqa ay ninkeeda ku leedahay. qodobo fara badan ayaan ka soo hadalnay. qodobka lixaad ee ah xaqa ay gabadhu ku leedahay ninkeeda waxa weeye in uu gabadha u hinaaso, u masayro, u ilaaliyo sharafteeda iyo wanaageeda iyo akhlaaqdeeda iyo dhaqankeeda, inuu ka ilaaliyo wax allaala wixii dhibaya, inuu ka ilaaliyo ciddii carabka wax ku dhibi laheed, ciddii isha wax ku dhibi laheed, ciddii wax ka sheegi laheed. maxaa yeelay xaasku waa kaydka ugu weyn ee qofku uu haysto, marka inuu cid kasta ee waxgaarsii karta ka ilaashada weeye. midda kale hinaasaha ama masayrka waxa weeye waa wax wanaagsan mar hadduu saxad dhaaf ahayn. waa ka hadli doonaa kan xun. waa waxa lagu yaqaanay tilmaanta dadka wan wanaagsan lagu yaqaanay. gabdhaha wan wanaagsan tilmaan ay leeyihiin weeye, ragga wan wanaagsanna tilmaan ay leeyihiin. dadkii waaweynaayo oo khayrka badnaa wax lagu yaqaana weeye. tusaale haddaan soo qaadanno, nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi habeenada ka mid ah ayaa ru'yo la tusay, jannadii ayuu arkay. markaas aan waxaan ku arku yidhi gabar la dhihi jiray umu sulaym. sidoo kale bilaal shanqartiisa ayaan ka maqlay uu yidhi. sidoo kale waxaan arku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam guri qurux badan oo gabari ay hor joogto. markaas ayaan waxaan doonu yidhi gurigaas jannada ku yaalla quruxda badan inaan inta galo fiirfiiriyo gurigaas aan arko siduu u yaallo. markaan weydiiyey gurigaas waxaa laigu yiri cumar binu khataaba leh. marka inaan galaan damcu yiri oo arka nabigu calayhi salaatu wasalaam. maadaama marka gabari ay hor joogto gurigaas, waxaan xusiistu yiri cumar binu khataab hinaasihiisii ama masayrkiisii. marka cumar waa uu ooyo wuxuu yiri rasuulka ilaahayow, adiga miyaan kaa hinaasaya oo kaa masayraya? marka in oo hinaasaha ama masayrku uu fiican yahay mar haddii uusan xadgudub ahayn ama maaragtay uusan shaki beena ahayn ayaa xadiidkaas daliil u yahay. waa cumar oo ka mida 10kii jannada nabiga ugu bishaareeyey. sidoo kale waxaa ka mida tilmaamaha dadka hinaasaha uu nabiga ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, ama maaragtay ay xaaskiisii ku tilmaantay asxaabigii la dhihi jiray zubayr binu cawaam, nabiga eedadiis ay dhashay, ee ka mid ahaa 10kii jannada loogu bishaareeyey, ee qabay nabiga xaaskiisa walaasheed oo asma bintu abibakar sidiiq qabay. waa tii oo iyadoo maaragtay maalin maalmaha ka mida meel fog timir ka soo sida uu nabiga iyo rag kaloo asxaaba la socda inta ka daba yimid ayuu nabigu neefkii uu saaraayo geelaha u fariisiiyey si ay u raacdo maadaama ay culays sido. markaas ayay xishootay, waxayna tiri waxaan xusiistay masayrkii ninkayga zubayr binu cawaam. marka nabigu waa uu dareemay inay xishootay oo ragga inay raacdo ay maaragtay ka xishoonayso. markaas ayuu nabigu ka tegay calayhi salaatu wasalaam. hadhow ayay u timid zubayr oo waxay tiri nabigu inuu isoo qaado ayuu doonay, laakiin waxaan xusaystay hinaasahaagii. markaasu wuxuu ku yiri culayska aasiday aa iiga daran hinaasaha aan ka hinaasi lahaa ragga aad soo raacday. marka yacni hinaasuhu waa wax fiican oo ninka inuu xaaskiisa u masayro, u ilaashado sharafteeda iyo sumcaddeeda iyo akhlaaqdeeda iyo dhaqankeeda u ilaashado. waxa weeye waa wax fiican haddii uusa xadgudub ahayn. sidoo kale yacni qof kasta oo hinaasihiisu yaryahayn, xaaskiisu xumida aan uga aaba yeelayn, ciddii carabka ku taagaysa aan u aaba yeelayn, ayadii hadday wax qaldan samaynaysa aan u aaba yeelayn, waa dad oo dacfi uu ku jiro. yacni diin ahaan iyo akhlaaq ahaan ayaa dhaqan ku jira, waa tilmaami doonaa. marka macnaha masayrka iyo hinaasaha fiicanna kama mid ahan in oo gabadhii mala xun aad ka aamintid, in aad dabagashid oo ayada dhammaantoo dhan aad fatashaysid oo aad ciriiri ku haysid. malada inay laba u hinaasaha ama masayrku inuu laba u qaybsamo nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam ayaa noo cadaynaya. nabigu wuxuu leeyahay min alghayrati maa yuxibu allah wa minha maa yubgid allah. hinaasaha ama masayrka
waxaa ka mid ah mid ilaahay uu jecel yahay, waxaa kaloo ka mid ah mid ilaahay uu u caroodo ilaahay uu necab yahay. fa ama alatii yuxibuha allaah falghayratu fi riiba, midda uu ilaahay uu jecel yahay waxa weeye midii wax shaki ku jiro meesha hadday soo galaan ninka uu u masayrayo maaragtay taas weeye. wa ama alghayra alatii yubgiduha allah falghayratu fi gayri riiba, hinaasaha ilaahay uu necab yahay waa midda wax shaki ah ayadoo aysa jirin uu ninku iskaga masayraya xaaskiisii. marka ninkii maadaama xaaska uu mas-uul ka yahay, saaxibulqawaama uu yahay, mas-uulkii reerka uu yahay, kan afraaddiisa ilaalinaya reerka dhan uu yahay, xaqa uu leeyahy waxaa ka mid ah inuu xaaskiisa u hinaaso uu ilaaliyo. ayadana marka xaaska waxaa laga rabaa in ay ka digtoonaato wax kasta oo dhibaato keeni kara. waa in ninka gurigiisa aysan u fasixin cid kasta oo uu dhibsanayo asagoon u ogolaan, waa inuusan u fasixin. waa in gurigiisa aysan u fasixin rag ajnabiya xataa asagu haddii uu maaragtay u ogolaado. maxaa yeelay wax allaala wixii fasahaadinaya reerkao dhan ayaa diintu ka fogeynaysaa. cid kasta oo reerkaas uusan ninkii raalli ka ahayn ee khilaaf keeni kartahayna inay soo galaan gurigaasi dembi weeye, ilaahay uusan ka raalli ahayn. aakhirana waa loo qabsanayaa. waxayna soo gelayaan xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laysa mina man khababa mri'a calaa zawjiha man khababa mra'atan calaa zawjiha laysa mina man khababa mra'atan calaa zawjiha, naga mid ma ahan oo dhaqankeennii wanaagsana iyo akhlaaqdeennii fiicneed ma haysto qofkii nin xaaskiisa ka fasahadiyuu le nabigu calayhi salaatu wasalaam. waxyaalaha ay gabadhii inay ka digtoonaato ay tahay waxaa ka mid a inaysan u bixin meelihii raggu ku kulmayeen iyo xafladaha qaldan ee la isdhex gelayo oo maaragtay ikhtilaadkii uu ka jiro. waxyaalahaasoo dhan meel kasta oo aan ilaahay ka raalli ahayn inaysa aadin ayaa ka mid a. watii cali binu abi aalib, sayidina cali binu abi aalib allah ka raalli noqdee uu lahaa war miyaadnan u masayrayn oo ilaashanayn xaasaskiina dumarkiinnii yakhrujna fi laswaaq yusaaxibna alculuuj, dumarkiinnii suuqyada ayay wareegayaan ayoo ragga garabka ku dhifanayo nimankii majiiraya. marka macnaheed waxa weeye gabadhii inay ka fogaato meeshii ikhtilaadkii ragga ajaanibta ahay oo dhan. sidoo kale waxaa ka mid a waxyaalaha dhibkaas iyo hinaasaha dhibaatada keeni karo lagu ilaaliyo inaan ninkii gabadha uusaba macaasi iyo dhibaato uusa u geysano isaga uusa u baahin macaasi iyo fisqi. oo maalanba gabadhani ninka waxay u guursatay inay shahwadeeda ku ilaaliso, waa inuusan marka maqnaashihii ka badin oo gabadhii uusan aada uga maqnaan oo uusan gaarsiin waqti xumaani qalbigeedaba kusoo dhici karto. ayadoo gabadha muuminada mar kastaba aan xumaan loo ogolayn oo hadda ilahay inay ka cabsato ay tahay, haddana ninku waa inuusan ugu kaalmayn yacni fisqigii iyo macaasidii ama maaragtay ragga qayb ka mid ah dumarkoodii inay yacni daawisiyaan ama qisooyinkii iyo aflaantii xuxumeed waxyaalihii xuxumaay oo dhan inuusan ninku ugu kaalmayn ayaa laga rabaa. haddaba hinaasaha waxaan niri waa wax diintu ogolshahay, laakiin laabudda min alictidaal fi lghayra. hinaasuhu waa inuu yahay dhexdhexaad. ninkii waa inuu u hinaasa xaaskiisa oo ilaashada, laakiin waa inuu yahay dhexdhexaad. waxaan niri ninka aan xaaskiisa u hinaasayn waa damiir laawe, wuxuuna soo gelayaa dayuuthku ama dayuuska af soomaaligaba waa qofka reerkiisa xaaskiisa iyo qaraabadiisa oga raali noqdo macaasidii, xaaskiisa inay rag kale gacanta ku dhegto, xaaskiisa inay rag kale la socoto, xaaskiisa inay rag kale maaragtay quruxdeeda u muujiso, walaalihiisa iyo qaraabadiisa gabdhaha ah aan uga aaba yeelin waxa xumaanahay samaynayaan, kaas dayuusa la yidhaahdaa. marka qofka fiicanna dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa kama mid ahaan xaaskiisan, maadaama ay tahay wax ugu qaalisan oo haysto, quruxdeeda cidina lama wadaagi karto, lamana arki karto. marka muuminka lagu yaqaanaa hinaasaha ina allaha yagaar wlmuminu yagaar, xadiidku waatuu ahaa inuu qofka muuminkaa hinaasayo wixii xumaa uu ka hinaasayo. hinaasaha waa labaa niri, mid ilaahay jecel yahay oo midii shaki haddii uu yimaado ah, iyo mid ilaahay uu u caroonayo oo midii shaki la-aan ah. haddaba waxaan tilmaamaynaa waxyaalaha hinaasaha keena. hinaasaha la ogol yahay waxyaalaha keeni kara
ayaan insha allahu tacaala ka sheekayn doonaa. dhowr qodob ayaan soo qaadan doonaa. hinaasaha waxyaalaha keeni kara waxaa ka mid a gabadhii oo ninkeedii telefoonka aan ka radinin. telefoonka hadda waqtiga aan joognan ka hadlayna, ninkii waa soo wacayaa, telefoonkiisa ma qabanayso, telefoonada kalena waa qabanaysa. waa wax hinaaso keeni kara. kow, waxaa ka mid a waxyaalaha hinaasaha ama masayrka keeni kara gabadhii oo telefoon kale markay ku jirto aan u aaba yeelin koolka ama telefoonka ninkeeda, ilaa inuu koolkaasi yahay waxyaalihii daruuriga ah. maalanba telefoon waxaa jira dowladdii iyo meelaha gaar ahaan qurbaha dadka jooga telefono muhimahoo marka hore saad ku hesho adag tahay, kiyo iyo line dheer aad galaysid, haddaad ka baxdidna hadhow aada helayn, hawl adag aad ku jirtid, gurigiiy wax adu hawl adag aad ku jirtid. kaas intaa ku jirto lagu male jaroo yani aad ilaa dhibaato kalea halkan ka haysato muhiimahooda hadha usoo laaba karin. laakiin telefoon caadi adoo ku jirtid ninkaagan uu kusoo wacayo inaada u aaba yeelin, ayadana haddii hadhow maseer ka yimaado adaa ka qayb qaadatay. waxaa ka mid a gabadhii in telefoonkii ninkeeda markii ay kula hadlayso, haddii kool kale uu soo waco ay inta jarta tiraa telefoona isoo wacay sugsug ay iska jarto telefoonkii ee ay kaas kala qabato hadba, oo arrintaasi soo laalaabato ayadoon maalanba codsi weydiisan, ayadoon maaragtay yani masaa-ishan hadda gabadhan ka hadlayna, xuquuqdii gabadhan ka hadlayna, asaga tiisi hadhow u tegi doonaa. ayadoon marka dhihin telefoon muhimaha isoo wacaya ee makugu soo celiya ee usoo golan telefoonka qartab siido hadba ee ay tira telefoon kale isoo wacay sugsug, taasina khatar weyn, waa wax masayr keeni kara. marka inay bulshadu ka digtoonaataan uga jeedna ujeedkana fidno hori maahan, laakiin in ay waxaasoo dhan ka digtoonaadaan wey. waxaa ka mid ah in oo maaragtay gabadhii ninkii oo la hadlaya oo raba inuu la sheekaysto ay iska daawanayso filin, ama ay fideoyaal iska daawanayso, ama warkii iyo tv-ga iska daawanayso, aysa u aba yeelen isaga aysaba maqleynba hadduu ku masayro hadda iyada ka shaqaysa. waxaa ka mid hoo muhiima teleefoonadan la iskula hadlo maaragtay conference koolyada bulshada iskula jiraan oo dumarkii u badan yihiin la isku wacyigeliyo, maraa qisooyin iyo warar fiican laga sheekaynaya. gabadhii marka ninkeedii oo u baahan ama la sheekaysanaya ama la hadlaya, hadday maanta o dhan leedahay sugsug qiso macaana socotee ee habeen kasta telefoonka iskaga jirto, asagii yani hadda warar fiicana khataraha laga sheegaya meesha xasaasiyad leh, xiiso badan. marka hadday leedahay sugsug qiso macaana socota, asagiina ay uu meeshan maaragtay uu iyadii doonayo, khatar weeye. hadduu hadhow kugu hinaasa adaa ka shaqaysa dhibkaas. gaar ahaan meelahaas conference koolyada inta badan bulshada islaaxeeda looga shaqeeya. adigu ha ku dumin reerkaaga marba haddii ninkaaga kuu joogo oo kula hadlayo, waa inaad islaaxii adigu aad bilowda hood la hadashaa, laakiin inaad tiraahdid qisooyin macmacaana socda ma ah. waana la ogyahay dadka maamulka ah oo qolalkaas wanaagga ka wadahay inaysan raalli ka ahayn in aad ninkaaga uu kugula colaytamo adoo kolkan ku jira. waxaa ka mid a waxyaalaha shaki keeni kara gabadhii inuu arka ninka iyadoo koolal niman kula jirta, telefono iskala hadlaysa maantao dhan niman ajaaniba, waa wax shaki keeni kara. waxaa ka mid a inuu arko ayadoo rag masaji isdhaafsanayaan oo wax isu dirayaan, waa khatar weeye, waa wax shaki keeni kara. waxaan rabnaa yani xadiidka qeybta uu sheego oo leeyahay waa shaki wax keeni kara aan ka hadlaynaa. waxaa ka mid a inuu arko xaaskiisiyo isu qurxinaysa dadka kale, guriga markii ay joogtana dharkii jikada ay macnaa asaga markay u imaanaysa dharkii jikadeeda wax ku karinaysa wadanaysa asaga hadday la mucaamaloonayso, laakiin hadday dad kale aragto labiska ugu qurxoona isku taagaysa, waa wax shaki keeni kara. wuxuu arkay xaaskiisiyo rag ajanabiya markay qaabilayso quruxdii u dambeeyay labiska u dambeeyay cadarkii u dambeeyay isku shubaysa, asagana aan waxdana ka lahayn isu qurxintiisa. xaaskiisiyo wuxuu arkayaa banaanka aadaysa qaadanaysana labisan shareecadu ogolayn oo labis qurux badan oo fidno keenayo dadkii soo jiidanaya, ama maba xijaabanayso xijaab sharciya ma qaadanayso, ama carfina iska buuxinaysa, ama maaragtay waxay make upki iyo wixii aan la ogolayn iska buuxinaysa banaanka loo ogolayn, waa wax khatar keeni kara. waxaa ka mid a xaaskiisii oo raggi markay la hadlayso codka u jilcinaysa, ilaahay waa diiday codka ha u jilcinina ragga ajaanibtaha, ilaahay qur-aanka nagu leeyahay fayatmaca aladii fii qalbihi marad, si uusan idin damcin
kii qalbiga ka jirana. waxaa la rabaa nin ajnabi marka la hadlaysid codkaaga xoog inaa u yeeshid oo uusan wax oo fidno keeni kara codkaagu noqon. waxaa ninkii arkay xaaskiisiiyo quruxdeeda muujinaysa, ragga ajaanibta u muujinaysa. dumarka badanaa meelaha mu'tamarada iyo markii la joogo hadday khudbaynayaan qayb ka mid a waxaa laga yaabaa dhegadhegihii inay soo muujido oo silsiladii qoorta soo muujido oo ay surkeedii muujiso. khatar weeye, ilaahayna kama raalli ahan. laakiin ninkaaga hadduu kugu hinaaso quruxdaada adoo soo muujinaya, adiga ka shaqaysay. quruxdaada iyo jirkaagan waxaa loo ogol yahay inta aan yani ninkaaga ama maxramkaaga dadka ahba qayb ka mid a, yani qaybtaadii oo aan xuduntii jilbaha wixii ka dhexeeya ninkaaga cid ahayn looma ogola. laakiin inta kale maxramkaagii waa arki karaan. marka ha tusin cid aan u banaanayn jirkaaga. waxaa ka mid a waxyaalaha shaki keeni kara in uu ninkii ogaado xaaskiisiyo yani guriga nin ajnabiga ugu imaanayo, ama ayadii ajnabiga u tegaysa, ama ay yani kaftan iyo sheeka ay dhex marayso, waxyaalaha aan ilaahay ka raalli ahayn, ayadaa shakigaas keentay. waa wax oo khayro la ogol yahay wey, masayr ama hinaase la ogol yahay. ninkii wuxuu ogaaday xaaskiisii oo niman ajnabiya telefoon dheer iskala jirta, kool dheer kula jirta maanta oo dhan leh, oo hebel waayaan qaraabo ahaa jirnay, hebel waayaan macrifo ahaa jirnay, hebel waayaan saaxiib ahaa jirnay, hebel magaciisii ahaa jirnay. lama ogolo waxaas, waa dembi. nin ajnabiya qadka ugu jirta maanta oo dhan. xaaskiisii oo wuxuu arkay waxaan shareecada ogolayn samaynaysaa, sidii khalwo nin ajnabiya ama la sheekaysigiisa. xaaskiisii oo wuxuu arkayba nin ajnabiya gacanta haysata, waa khatar. xaaskiisii oo nin ajnabiya gaari la saaran u arkay, waa khatar. adiga fidnadaas ka shaqaysa. xaaskiisiioo xaflad markasta taagan u arkay, waa wax looga hinaasi karo. xaaskiisiioo wuxuu arkay meelihii barihii bulshada soo dhigaysa muuqaalkeeda oo qurux badan oo aan asturayn, ama maaragtay ay labisye oo khatar oo qurux badan soo marsatay, waa wax oo khatarho shaki keeni kara. xaaskiisiioo wuxuu arkay ku dadaalaysa inay qoraaladii iyo teleefoonadii iyo koolalkii ay wacaysa ka qarinaysa, waa wax shaki keeni kara. oo uu macnaha ninku hadduu hinaasa imaan kara, yani hinaase uu ku dambaabaya maahan. xaaskiisii wuxuu arkay wadada la taagan niman ajnabiya, nin ajnabiya la taagan, waa wax shaki keeni kara. xaaskiisiioo wuxuu arkay jirkeedii qayb ka mida wadadii ku banaynaysa, oo jirkeedii qurxoonaa qayb ka mid a, xabadkeedii, qoorteedii aan xijaabkii si fican u saaranayn, waa wax shaki keeni kara. marka waxyaalahaasoo dhan wax shaki keeni kara. iskaba dhaaf kuwa oo haddee inta fanaaniinta noqdeen niman ajnabiya la heesaya, oo la jaasaya, oo la niikinaya, oo maaragtay nin ajnabiyala ku jecel, kaasi hadduuba ku aamuso waaba dayuus. ninka gabadhaas qaba hadduu ku aamuso, kaas eber weyba. ninka xaaskiisa ay nin ajnabiya gacanta ku dhegan tahay, ninka xaaskiisa ay nin ajnabiya leedahay, adaan ku jeclo, kugu soo toosa, kugu soo kaca, hadday rabta riwaayad ha ahaato, laakiin waa dembi. hadduu ka qiiroo waaya isagaa qof jiran ah. marka waxyaalahaas oo dhan waa qiiro la ogol yahay, waa masayr iyo hinaase la ogol yahay. waxaa muhima oo aad in loogu baraarugo ah, gaar ahaan qurbaha. haddii oo maalanba masaladan khalwaday la socotaa, khalwaday ku saabsanta, waxaa laga yaabaa gabdhihii markay qurbihii guryaha joogaan, guryihii sida badan waxaa laga yaabaa guryaha dowladdii iyo kambaniye inay shaqo ku leeyihin dayactirkooda. iyo gabadhi waxaa laga yaabaa inay ciddii gurigan dayactiraysa ballansato, oo ay tiraahdo guriga dayactiran u rabaa, ama ha ahaato korontadii oo laga hagaajiyo, ama guriga oo laga hagaajiyo, ama wax oon guriga ku saabsan. waxaa laga yaaba nin ajnabi in loo soo diro, gabadhii keligeed guriga ay joogto, waa khatar weye, dembi wey taas. gabadhii waa inay khalwo a ka imaan karta caruurteedoo oo haddii aysan joogin baraarugsan, waa inay qof kale u wacataa, waa inay qof markaas u waqata. qayb ka midihi nimanka ajnabiga oo cadaanka umaba arkaanba nin. waxaa laga yaaba maryo aan laa'iq ahayn iyo xijaab aan hagaagsanayn inay ku qaabisho, albaabka uga furto. ninkii cadaankaa waa dembi. dadkaasi kan muslimka inuu kaaga sii fogaado weye, sababtoo gaalada xataa naagahoodiiya qur-aanku leeya ka xijaabta. aw nisaahina marka la fasirayo, yani gabdhihii muslimaadka ahaa dumarkoodii weye. kuwii gaalada ahaa culammada qayb badan waxay qabaan in laga xijaabanayo.
sidii ninkii ajnabiga ah marka ka waran raggoodii haddaadba aad ku qaabilaysid sidii yani waxaan waxba ahayn oo aad leedahay ninba uma arko dembi wey khatar wey marka masaaishaas oo dhan in aan ka digtoonano wey marka haddii gabadhii ninkeedii waxyaalaha uga masayra karta waxaa ka mid a iyada hadday ninkeedii zina iyo macaasi ku ogaato ama xaqiisii xaqeeda iyadoo dulminaya uu ku ogaato ama uu isagoo ku xadgudbaya ama tii kaloo lala qaba uga roonaanayo waxyaalahaas oo dhan gabadhu inay ninkeeda uga masayrto intii aan sheegnay qaybtii kaloo intii aan soo sheegno ninka aan ku sheegnayna bilcagsigeed hadday ninka gabadhu ku aragto inay uga masayrto uga hinaasto waxa weeye waa xaqay u leeda maalan ba asagoo waxay aragtay koolashii ka qarinaya masajadiisii ka qarinaya ku dadaalaya waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalaha hinaaso keeni kara marka laakiin hinaasaha aan la ogolayn maxay yihiin in dadkii shaki maanta o dhan ay ku kala jiraan oo shaki aan jirin la isku abuuro haddii qofkii ninkiiya xaaskiisii waca ma xaaskiya ninkeedii wacday telefoonkii kama radin qofku mashquulu ahaa karaa telefoonka codka ka xirnaa karaa salaada ku jiri karaa haddaad tiraa ka waran markii telefoonka aan laga jawaabinba maxaa telefoonkaaga iga jawaabi weyd maxaa telefoonkaaga biisi ahaa xaggee joogtay xaggee ka dhacday taas waa dhibaato dadku abuuranayaan qaar ka mid a xataa in ay abab inta soo degsaan ay leeyiin ninkii waa la soconaya haddaad la socotid cuduraad isku ridaysaa iyo dhibaato qof bini aadama qofnama kontarooli karo marka aan shakiga qaybta ahoo badan waa midda nabigu u leey calayhi salaatu wasalaam masayrka shaki la-aanta ah ma fiicno masayr waxaa jira qofka uu isku abuurayo oo uu keensanayo gacantiisa ku shaqaysanayo ma fiicna kaas cudur kugu dhacaya wey qayb ka mida maanta o dhan waxaa laga yaabaa inay gabadhii leedahay ninka ma ijecesha maanta o dhan aan macno lahayn qofkan hadduusan ku jeclayn kulama joogin haddaadan arag calaamaad keenaya inuusan ku jeclayn inaa weydiido ma loo baahna laakiin haddii ay dhacdana ninkii waxaa looga baahan yahay inuu si naxariis looga jawaabo oo gabadhii waa masaakiin gabdhihii uu maaweeliyo oo hadal uuba soo xiro uu yiraahdo waa ku jeclo saas iyo saas iyo saas ayto laakiin haddii uu hadal uu waa ku jeclahay kaliya kusoo dhamay karay uu isku ballaariyo ka waran oo yiraahdo adigu ma jeceshahay badnida iyo jacaylku ma saas iyo saas khilaaf meeshaas ka abuuro iyadina markaas ay tiraahdo waa ogaa walba inaadan jeclayn saas iyo saasaan ku ogaa saas iyo saasaan ku ogaa dhibaatay keensanayaan midda kale gabadha laftiga ma jeceshahay waqti inay u leedaha la rabaa ka soo qaad ninkii oo daalan oo miskiina oo hadda soo dhaca aad tiri may jecesha asna daalkiisu wuxuu yiri ma jeclada badnida iyo saas iyo saasaa tahay markaasaa dhibaata halkaa ka ogaanta war wax yani waxyaalaha maanta reeruhu ku dumayaan ama khilaafku ka bilaabanayo ama dhibaatadu ka bilaabanayso waxyaala yaryar wey waxaasaa la weyneynaya ma fiicna marka shakiga badan iyo isdabagalka badan iyo hinaasaha aan macnaha ku fadhin iyo labadaba ragga waxaa jiraan rag aad u dhiban oo gabadhii xataa qaarkood ay leeyihiin dukaanka kama soo adeegi kartid banaanka uma bixi kartid shaki intuu ka gaaray uu leeyahay xagee marta iyo oo gabdho muuminaad ah oo ahlo iimaan ah oo khaafilaad ahoo xumaanta dhan moog oo wuxuu u aaminayaa inay hadday banaanka u baxdaba waxa weeye ay balaayo soo samaynayso waa rag jiran wey raggaas ragga qayb ka mid a gabar maalan ba reer laheed guri deganeed oo ilmo haysatay oo carmali ahayd uu guursaday gabadhaas markuu guursanaya iyadoo sideeda meesha degan u guursaday markii uu guursada kabacdi aa shaki kusoo degaya markaasuu gabadhii waardiye iyo ilaalin uu leeyahay meel cag ma dhigi kartid anoon kuu jeedin war gabadhan shalay markaa guursanaysa miyaa ka shakisaneed waa maya haddaada ka shakisanayn maxaa keenaya inayba baahi kala gasho adigu haddaad joogtid ma baahi tirtid marka ragga qayb ka mid a ayaa ciriiri iyo dhibaato iyo reerihii gelinaya oo shaki aan jirin yani qofku mar hadduu jiran yahay shaki kama bixi karo ilaahay naga daaweeye markaasuu gabadha neefteeda kontaroolaya neefteeda yani fii xarakaatiha wa sakanaatiha uu kontaroolaya taas marka wax diinteenna ogoshahay maan marka waxyaalaha oo khayrada iyo masayrka diinteennu waa tartiibisa yani waxaa ka mid a waxyaalaha lagu hagaaji karo kow gabadhii inay xijaabato markii ay baxayso oo xijaabkii sharciga ku baxdo waa ka soo sheekeyna 2 muxaadara xijaabka ugu soo sheekeyna gabadhii inay indhaheeda ragga ajnabiga ka laabato inaysa quruxdeedii u muujin cid aan u banaanayn oo zawjkeedii iyo maxramkeedii inaysa ragga ajnabiga ha dhexgelin xataa ninkeeda hadduu ogolaado
oo raggii waa kasoo sheekeyna qaabka daraa in aan ninka laftigiisu gabadha u baahin fitno oo waxa weeye uu asaguna ugu dadaalo gabadha la kulankeedii oo uusan ka maqnaan waqti fara badan. marka waxyaalahaas iyo ninkuna xaaskiisa inuusan uga sheekayn nin kale, gabadhuna aysan ninkeeda uga sheekayn xaas kale, gabar kale, lama ogolo. waxyaalaha dhibaatada keeni kara. qodobka ku xiga waxa weeye ee ka mida xuquuqda gabadhu ay ninka ku leedahay waxa weeye an yuxsina dhanna bihaa walaa yatakhawanuha. gabadhii in uu malada u hagaajiyo oo wax fiican ka aamina gabadha xaaska, ee uusan isku dayin inuu raadiyo khayaanadeeda oo uu yacni ilaa mar haddaad shaki qabtid ee aa istirahdid raadi dabagal qofkan amay ku khayaanaysa ama waxun samaysaa, yacni cirka xataa kula noqonaya dad dhibaata kugu dhacaysa. marka diinteennu waa diida. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa ilaaliyey wax shaki iyo yacni dadka waswaas abuuri kara oo dhan uu nabigeenu naga fogay calayhi salaatu wasalaam. markaasuu nabigeenu wuxuuna faray haddii aan maqannahay xataa xaaskeenna marka aan u imaanayna safar haddaan jirnay in aanan soo dheelman ee saq dhexe albaabka aanan soo garaacin ilaa nala ka war helo xaaskeenna isu kaana diyaariso, isu kaana qurxiso, gurigii noo hagaajiso, waxa weeye gabadhii laga maqnaa ay ishabayso. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha ku dadaalinina inaad si qarsoodiyo kadis a kusoo gashaan. kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yakrahu an ya'tiya arajulu ahlahu turuuqa. nabigu wuxuu diidi jiray oo dhibsa jiray in ninku habeenkii guuro uu ku yimaado asagoo iska soo warbixin. marka haddaad telefoona la haystaa dadki waxa weye waa xogtoo leeli karaa. marka maanta soo safraysa haddaad tira soo socda bis waa dhammaatay. safar qofkii ku maqnaa laga hadla, lakiin ninkaa magaalada aadoo caawi soo hoyana uma baahna inu kusoo ogeysiyo. marka adugu ujeedku waxa weye gabadhii waqti isu kaa diyaari karto imow. idaa taala axadukum alghayba falaa yatruqu ahlahu leyla uu nabiga calayhi salaatu wasalaam leeyahy. qofku hadduu maqnaashihiisu bateen yuusan habeenkii soo guurin. macnaheedu waa axaadiista culamada markay sharxayaan qofkii aan xogtiisa isagoo la helin wey. haddii adoo intaas maqnaa xataa dad kale kaasoo horumareen kaasoo warbixiyaan ama hadda telefoona la haystaa iska soo warbixisid habeenkii waa imaan kartaa, waqti kastaa imaan kartaa. xadiid kaloo nabigu uu ku cadaynaya calayhi salaatu wasalaam sababta loo diidayo in uu saq dhexa yimaado waa kan. wuxuu leeyahy jaabir binu cabdillaahi radia allahu canhu nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam an yatruqa arajulu ahlah ahlahu leyla yatakhawanuhum aw yaltamisu catharaatihim. nabigu wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam ninku inuu habeenkii soo guuro oo ehelkiisi xaaskiisa kusoo guureeyo, soo dheelmado asagoo khayaanadooda raadinaya ama ceebahooda raadinaya oo isleh yani waa ku khayaaneena ku gaad ku qabo cidaa meesha joogto intaasaa maqneede guriga cidda dhex fadhida ogow, ceebahooda ogow, sida yani ma lagu khayaanay guriga ma cid kalaa degtay yaa soo galay asoo isleh. lama ogola taas. nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam. waa in lagaa war helaa oo xaaskaagii marka aad imaanaysid ay kaa war heshaa. riwaayo kale sababaha nabigu cadiyay calayhi salaatu wasalam oo leeyahy gabadha xataa ilaa ay tintii hoose iska xiirto, isu kaa diyaariso, kuu shallaysato, isu kaa qurxiso, waxa weeye maaragtay ha soo guuraynin uu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam. markaasuu nabigu wuxuu diidayaa malada xun oo xaaskaaga u qabtid, isgaadgaadka, shakiga, isjaasuusida, isbasaasida, waxyaalahaasoo dhan. ragga qayba cudur qaba oo le ilmihii hooyo yay salaantay, yay la hadashay, yay wacday, yaa u soo galay, yaa yimid, yay fiiris, waa rag jiran wey. ilaahay cudurkaa ka qaado. laakiin dhanka kalena lama ogola rag ajnabiya, looma ogola reeraha nimankoodu ka maqan yihiin inay tagaan. absolutely gebi ahaanba lama ogola rag ajnabiyihi reeraha nimankoodii ka maqan yihiin gaar ahaan oo aan ilmo waaweyn oo waxgaranaya u joogin inay tagaan lama ogola. nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam. markaasuu nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa talijuu cala almugiibaat. war gabdhaha laga maqan yahay hawgelinina faina ashayطaana yajri min axadikum majra dami. shaydaanku adinka dhiiggiinu la socdaahe
waa qalbigii iyo ku jiraa waxa weye fitnadu idin xusiisinaya gabdhaha raggoodu ka maqan yihiin ha u teginin. markaasaa le rasuulka ilahi adigana miyuu ku yimaadaa shaydaanku? markaasuu yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam aniga ilaahaya ii kaalmeeyo, shaydaanka iga kaalmeeyey, waa uu islaamay ama waa aan ka nabad galay, la macnay leedahay. xadiidkaas marka nabigu calayhi salaatu wasalaam marka uu sheegayey waxaa dhacday qisadan waxay ahayd gabadhii xaaska sayid abubakar sidiiq allaha ka raali noqdo ayaa waxaa dhacay xaaskiisii isagoo maqan ayaa rag soo booqdeen. markii ay soo booqdeen raggaasi, gabadha waxaa la dhihi jiray asmaa binti cumays. markii ay soo booqdeen rag oo reerkeeda hay ahaayeen, reer bani haashima, abubakar ayaa yimid. abubakar markii uu yimid ayuu wuxuu arkay raggan, markaasuu dhibsaday sayid abubakar sidiiq allah ka raali noqde. markaasuu u sheego rasuulka ilah raggaasaa gurigeyga yimid. marka ayaa nabigu wuxuu abubakar una daba dhigay lam ara ilaa khayra, waxaan wanaag ahayna kuma ogi, ma arkin waxaan wanaag ahayn iyo khayr. markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha qad bara'aha min dalik, ilaahay waxa shar ah iyo xumi ah gabadhaas waa ka bari yeel. kabacdi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa istaagay, mimbarkii istaagay, waa khudbeeyey, wuxuuna yidhi laa yadkhulana rajulu bacda yowmi hada calaa mugiiba ilaa wa macahu rajulu aw ithnaan. maantay ka bacdi nin yuusan u gelin gabar laga maqan yahay ilaa asagoo nin kale ama laba ninoo kale la socdaan ma ahane yaan nin u gelin gabar laga maqan yahin. maxaa yeelay waswaaska iyo shakiga waxyaalahaasoo dhan reerihi ayay burburinayaan. shakigu reerihuu burburinayaa, khilaafuu keenayaa, isdabagaluu keenayaa, waxyaalahaasoo dhan lama ogolo. nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaamna wuxuu rabaa farxad inaan ku noolaano, wanaag inaan ku noolaano, gabadhii inay ninkii daba gasho oo shakigeedu bato ayadoon wax shaki keena jirin, ayaday cudur u tahay, reerkeedaa ku baaba'a. ninkiina inuu gabadhii daba galo isagoon wax shaki keena jirin, cudur asagay u tahay, reerkiisana ku baaba'ay. waxaana idiin sheegaya oo shareecadeennu noo cadayday khilaafka badan iyo isdabagalka badan iyo ragga qayb ka midaho awoodaada muujilaho iyo raganimaada gabadha ka hor muujila iyo waxaas reera kuma hagaagaan, waa ku burburan. canaanta badan reeraha waa burburisaa, isdabagalka badan reeraha waa burburiyaa, shakiga badan reeraha waa burburiyaa. qofkii raba farxad inuu ku noolaadow shakiga badan iska dhaaf, canaanta badan iska dhaaf, waswaaska badan iska dhaaf, ilaa ay yimaadaan wax keeni kara shaki. waa ku soo bilaabano taas qofka muuminkaahi waxa weeye qofka muuminkaahi in uu hadduu wax xun arko uu ka qiiroo waaya waa iman la-aan iyo diin la-aan. laakiin ayadoon wax shakiya jirin, ayadoon wax waswaas keena jirin, inaad iska shakisantaho gabadhi markasta daba taagan tahay ama gabadhi ay ninka daba taagan tahay waa dhibaato adinka idiin soo hoyata. marka nabigeena wuxuu alayhi salaatu wasalaam ha kusoo guuraynina gabadhi a ka maqnaydeen, ha isu keen diyaariso. axaadiisu sababka ay cadaynayso kale waxaa ka mid ah inay gabadhi isu keen diyaariso oo isku kaa carfiso. amhiluu xataa nadkhula leyla uu nabigu ku yiri asxaabtiisii markay safar ka yimaadeen, war suga ilaa aan yani habeenkii tagno, kay tamtashital shacitha wa tastaxida almugiiba, si gabadhii yani laga maqnaa ee madaxeeda aan hagaajisan ay isu qurxiso, u shanlaysato, isu kaa udgiso, reer kuugu sii diyaariso. tii laga maqnaa ayana tintii hoose iska xirto, ishabayso, ninkeeda ay ku tala gasho. waxa weeye tinta hoos xiridda haddaan masaladaas wax yar ku darno, yani waxaa qofka tinta hoose u xiiri kara bes ayada nafteeda iyo qof u xalaal ah oo maaragtay maalan ayadiyo ninkeeda bisa isu jari kara. lama ogolo qof kaloo ajnabiya. maalanba masaladaas waa nala weydiye, waxaan u sheegaynaa in meelihii bukuyeerka iyo gabdhuhu tagayeen in naag ajnabiha ay gabadha ka hagaajiso ma banaana, cawradeedana ma loo ogola in ay aragto. qofka meelahaas cawrada waxaa markii oo xaalad caafimaad oo dhakhtar ay marayso khatara bis ayaa la ogol yahay. marka masaladaasna inaan isku baraarujino wey. marka
diinteennu waxay markasta naga fogeynaysaa shakiga badan ayadoo ixtiyaad la rabo ayadoo dadaal la rabo oo waxa weeye aan dadaalka laga tegayn oo wixii dembiga laga fogaanayo waxa dembiga waxyaalaha ay tahay in laga fogaado maanta waxaa ka mid a soomaalidana ay ku badan haddana khasaaradeeda la arkay dadka la fududaysto nabigeenu waa diiday calayhi salaatu wasalaam khasaaradiisana waa la arkay tusaale qofka ninka qaraabadaada maalanba adiga walaalkaa kula dhashay in guriga uu kula noolaado xaaskaaga ma banaana ee uu usoo galgalo qaar dadkii qurbaha joogay walaalkii ayaa ninkii dumaashigeeda guriga kula noolaanaya waa khatar weyn dadaa la arkay reerihii uur yeeshay ninkiina ka maqan yahay nabiguna muxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam alxamu almowt yani u fiirso dumaashiga waa mowdba maxaa yeelay lagama shakinayo gurigii iska soo gelaya uu iska imaanayaa waxaa la leeyahay waa nin qaraabada marka waa dhimashaa ka imaan karta macaani far badan dhimashadan culummadu ku fasiraan laakiin waa dembi weyn lama ogola waxaa kale khasaaro la arkay oo dhacday ah gabadhii walaasheed xaaskiisa walaasheed inay guriga ninka la joogto oo marka qaarkood xaaska ay uga tagto fitno shaydaanka isku horiyey oo la arkay xaaskiyo walaasheedo ninkii uriyey oo dhacday waa dembi waxyaalahaasoo dhan lama ogola waa fitno waa inaan ka fogaano wey ninku xaaskiisa gabdhaha la dhashay keligeed ayadoo ah lama macnaha khalwoo karo safarna keligeed lama geli karo gabadhuna ninkeeda walaalkiis oo keligiisa khalwo lama geli karto safarna lama geli karto waa dembi ilaahay uusan ka raali ahayn marka waxyaalahaasoo dhan inaan ka dadaalno aan ka fogaano weeye insha allahu tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu reeraheena noo xifdiyo iimaankeenna noo xifdiyo diinkeenna noo ilaaliyo shakiga badan iyo waswaaska cudurka oo reeraha dumyana ilaahay uu naga ilaalsho intaasaan casharkeena kusoo koobayna wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu